kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada Joogla Official. Wararkii ugu dambeeyay ee Saake waxaa majaladaha ay qorayaan soo dhaweyntii loo sameeyay gabdhihii reer Spain ee ku soo guuleystay World Cup-kii. Heshiis la gaaray Chelsea oo goolhayo la wareegtay, City oo ciyaaryahan bedeli doono Riyad Mahrez la wareegtay, Inter Milan oo heshiis la gaartay xidig ka tirsan Bayern Munich oo kuma xidigaas ciyaarihii xalay la ciyaaray. Arsenal miyay guuleysatay? Maxaase ku dhacay xidig ka tirsan Arsenal oo red card qaatay, halka Talyaani ee AC Milan gool muhiim ah gaartay kadib ciyaaryahan Giroud iyo Pulisic oo wacdar ka soo bandhigay. Maxay ku dhamaatay ciyaartaas? Haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan, fadlan follow noo dhe, like noo saar, siina share gare aska noota. Waa kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. kusoo dhawaada warkii oo tafatiran. saawad ogtiin TikTok waa la xiraa lahay, marka waxaan iga codsanaa inaad booqataan YouTube-ka profile-ka noo saaran. meeshaas ayaan had kadib insha Allah xoog saari doonaa wixii cusub oo xoog aan markaas meesha ayaad kala socon doontaa insha Allah. ha moogaanin inaad booqataan, subscribe, like, share, comment waxa waay dhankiin waa aniga mahadcelinaa. kusoo dhawaada warkii oo kooban. Naadiga kubadda cagta Arsenal ayaa xalay toole ciyaartay iyadoo bandhig waali ka sameysay ujeedadeedana cadeysatay inay markale u tartanto horyaalka Premier League ku guuleysigiisa. ciyaartu waxay socotaba la isku adkeeyay, waxay gool ka heshay gool penalty ah kabtankeeda Martin Odegaard, asigoo gool rigooro ah gool u bedelay. Odegaard ayaana goosha siiyay, Arsenal ayaana ku adkaatay gooli waxba. Arsenal ciyaartu waxay socotaba waxaa red card ka qaatay xidigeeda garabka midig ee daafac ka ciyaaro Tamayuso, sidaasna ay 10 ciyaareen ugu dhameysteen ciyaarta. Arsenal ayaana guushaas gaartay. Arsenal oo laga filanayo markale inay tartanto ayaa ciyaartaas lagu arkay. ciyaar waali ayaan soo bandhigtay, waxayna ku adkaatay gooli waxba. waa arki doonaa ciyaaraha soo socda iyo sida ay u ciyaarto. adiga maxay kula tahay inay sii horumari karto ciyaaraheeda mise sanadkan inay sanadkeeda ahayn? sidoo kale waxaa laga dheelay qaaradda Yurub kulan ka tirsanaa Serie A u dhaxeeyay Bologna iyo AC Milan. kulan ka tirsanaa Serie A, AC Milan ayaana 2 gool eber ku dirtay naadiga kubadda cagta Bologna. 2 gool ee ka kala heshay labada xidig ee ka imaaday naadiga kubadda cagta Chelsea, Olivier Giroud iyo Christian Pulisic. Chelsea waxa waaye naadigan ayay caadi suuq ugu dhistay, anagoo og inay lafta jeeg xataa sanadkan soo siisay. line-up-ka oo AC Milan waxaa ku jirto ku dhawaad 4 ciyaaryahan ee ka badan oo maleena Giroud, Pulisic, lafta jeeg iyo Tomori. marka Chelsea waxa waaye AC Milan dhise. sidoo kale waxaa ku soo gabagabay doonaa kulan ka tirsan horyaalka La Liga oo laga dheelay xalay oo u dhaxeeyay naadiga Deportivo Alaves iyo Sevilla. ciyaar waali ah, ciyaar inaba caadi ahayn, ninkii daawadana oo ku riyaaqay banoonigaas. Deportivo Alaves ayaa garaacday naadiga Sevilla. Sevilla ayaan ogeen mar dhow inay finaal kala dheeshay naadiga kubadda cagta Manchester City ee UEFA Super Cup ah iyadoo ku soo guuleystay UEFA Europa League. marka xalay Sevilla in la soo dhaweeyay waxaa laga kiciyay qaac dhale afar laga kiciyay afar. marka sidaas ayayna ku soo dhamaatay 4-3. Rafa Mir iyo Lamela ujeeday oo gool u dhalinayaan naadiga Sevilla. waxay ciyaarta socotaba 4-3 ayaa lagu garaacay. Deportivo Alaves ayaana heshay 3 dhibac ay ugu horeysay horyaalka La Liga. markan iyo suuqa kale iibsiya Bafad oo soo duulaya Milan si uu tijaabada caafimaad ugu maro naadiga kubadda cagta Inter Milan oo heshiis u saxiixo. Bafad iyo Inter Milan heshiis way gaareen. Inter iyo Bayern Munich heshiis way gaareen oo heshiis 30 milyan ah ay ku kala wareegayaan labada naadi. sidoo kale waxaa suuqa kale iibsiga ka mid ah Doku oo ku biiray naadiga kubadda cagta Manchester City asigoo bedel sax u noqon doono Riyad Mahrez. miyuu ka soo bixi doonaa booskii Mahrez loogu talgalay, marna gool dhalinaya marna keed fadhinaya, mise isbedel nooc kale ayuu la soo bixi doonaa? sidoo kale Chelsea ayaa la wareegtay goolhaye backup u noqon doono Sanchez, kaasoo dhawaanba ugu soo biiray dhankan iyo Brighton, goolhaye koowaadna ah. laakiin hadda waxaa la filaa in goolhayahan cusub Petrovic
inuu baagab u noqdo booskaasna tartan xoogan oo ka imaado. marka Petrovic ayaa lala wareegay, Chelsea ayuuna ku wareegay heshiis 16 malyan ayayna kula heshiiyeen. tijaabada caafimaadna waa la buukin gareeyay, wuxuuna mari doonaa maalinta Arbacada ee soo aadan. sidoo kale wararkeen waxaa kusoo gabagabay doonaa ciyaar caawa la filayo Al Nassr iyo xidiga Cristiano Ronaldo dheeli doonaan, laakiin ka hor soo dhaweyntii maanta loo sameeyay ilaa ay xalay toole ka socotay Spain ku guuleystayaasha World Cup ka dhanka dumarka. gabdhihii ayaana la soo dhaweeyay si aad leh, maadaama taariikh ay dhigeen ayna noqdeen xulka labaad isku qaada rag iyo dumarba World Cup kadib Germany oo ragooda iyo dumarkooda saa sameeyeen. gabdhihii Spainna waa la soo dhaweeyay, soo dhaweyn cajaa'ib leh ayaan loo dhigay. marka hambali ayaan leeyahay, waxaa gaarteen guul muhiim ah. sidoo kale waxaa kusoo gabagabay doonaa warkeena ciyaar caawa laga filayo Saudi Pro League oo u dhaxeyso naadiyaasha kubadda cagta Al Nassr iyo Shabaab Al Ahli Dubai. labada naadi ayaan isku qaban doono horyaalka kulankii saddexaad. CR ayaana ognahay wax natiijo ah inuusan gaarin labadii kulan waxaa guuldaro biday naadi kubadda cagta Al Ittifaq oo Jaarad hogaamiyo yahay. kulankii kalena 2-0 ayaa loo adkaaday. kulanka caawa aan sugno bandhigiisa iyo Al Nassr meesha gaarto. haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan fadlan follow noo laag noo saar siina shargaar aska noo taawo. waa ka imaad celina daawashada muuqaalkan. haddii aadan YouTube keenana jirinna fadlan naga soo booqo, subscribe, like, share aan ka helno. waa ka imaad celina daawashada muuqaalkan.